aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan wixii shalay aanu u arkayna inay tahay يعني wax la qaban doono ama qorshe maanta inay isku bedeshay wax dhacay oo aan raaci u horeeyay oo qorayaasha ahaa aan halkan ku soo dhaweynayno waxaad ilaahay jiri doona yani dhowr raac oo ka damayn doona oo ilaa inta la gaarayo maalinta bandhig u furmi doono oo 28ka inaanu maalin walba raac soo dhaweyn doono waa sanadkii labaad waa iskaashigii iyo isbahaysigii ugu horeeyay sidra iyo shirkadda buugta wacdiga iskansam waxaan rajaynayaa insha allah inuu maaragtay yani isbahaysigaasu jiro sanadaha soo socda oo dhan maanta waa markii ugu horeeyay inaan Soomaaliya imid inaan Garo imid inaan Puntland imid inaan gacalada iyo Baxda Halabuur iyo dadka inaan bokasho u imid waxaan diyaar u nahay aniga iyo walaashay Ubax Christina inaan shaqeysano inaan wax qabano inaan taariikhda iyo suugaanta Soomaaliyeed iyo heesaha inaan ka hadalno insha Allah markaana waqti badan Soomaaliya ka maqnaa markaana ugu horeysay inaan soo noqdo marka waa wax aad aan ku faraxsanahay bandhigan oo Garowe buugaagta Garowe iyo magaaladan inaan imaado sababtoo ah aabahay markaan yaraa mar walba iga sheekeyn jiray Garowe iyo Puntland iyo dalku asaga ku dhashay marka indhahayga inaan ku soo arko wax oo aad u muhiim ah weeye waxaan halkan u soo istaagay inaan aad u salaamo dadka aan Soomaalida u dhalan sida Ladan iyo Ubax dadkaas oo dhiirigelin cajiiba siinaya dadka Soomaaliyeed